way dadkeena dhimashada baahidu ay keenayso inaan ka badbaadino si aan uga badbaadinana waa inaan amnigiina aan sugno marka baahidii oon dadka ka badbaadino oon abaaraha dadka uga gurmano iyo abaara kaliya ma ahe bari hadduu daadad yimaadana dee qaylada aan kuma jiri karnay inaan xal waara la nimaadno iyo si dadkeena aanu badbaadino xal waarana aan la nimaadno caqabadaha ugu waaweyn waa kuwa amniga inaan zuulino caqabadaha ay hortaagan saddexdaas arrimood oo isku duuduuban ayaa priority inoo waxa kale oo dhan way soo daba socdaan ayaga ayayna kaalmaynayaan waxaan rajaynayaa dalkani inuu aado priorities wax kale lagama shaqayn karo haddii aan nabadgelyo la helin meeshaas way meesha bugta Soomaaliya meesha u baahan xalkuna waa meeshaas innaga oo heshiisa oo mid ah innaga oo isku kalsoon innaga isku tashanayna waxaa lagama maarmaana inaan u dhaqaaqno sidaan dalkan u xoreyn lahayn dalkan wuxuu u jahaysan doonaa inuu iska xoreeyo cadawga waxaan rajaynayaa in loo diyaar garoobo wasaaradda awqaafta sheekhu hadda wasiirka xil baa saaran wuxuu xil ka saaran yahay muslimiin baan nahay ha noo sheegto dagaalka aan meeshaas la gelayno ma sax baa mise waa qaldan ma baatil baa mise waa xaq waa inay noo sheegtaa wasaaradda ganacsiga waxaan ka rabnaa inay businesska abaabusho oo la aado xagga loo jeesto wasaaradaha qorsheynta iyo aan ognahay pillarska ka shaqeynaya pillarskaas wanaagsan waa wadaysiin laakiin priority-geena waa inaan ogaanaa wasaaradda maaliyaddu waa inay sidaas ogaataa